maalmahan dambe waxaa la saxab if you don't have any skill you are nothing haddii aadan skill lahayn waxba ma tihid maxaa yeelay skillka ama xirfaduhu waxay ka caawinayaan noloshaada inay barbar socdaan ama xareerahaaga sidoo kale inaad tahay qof hub ku hubaysan maxaa yeelay markii aad garanayso waxyaabaha gacmaha laga qabto oo skillska ama xirfadaha nolosha iyo wax walbo adiga ku saabsan ayaa fududaanaya maxaa yeelay waxaad leedahay tab iyo xeelad aad kaga badbaado noloshan ciriiriga badan ee u baahan dhaqaalaha joogtada marka saaxiib insha Allah maanta waxaan rabaa muuqaalkeena inaan kula wadaago saddex xirfad oo ay muhiim tahay qofka dhalinyarada inuu aqaano haddii aad taqaanana waxaan rajaclanahay inaad xirfadan advance gareyso ama aad qof expert aad ku noqoto insha Allah haddii aadan aqoonin insha Allah muuqaalkan inaan kula wadaagayaa fadlan haddii aad tahay markaa koowaad channelka ku soo dhawow magacaygu waa Cabdi Nuux Xuseen sidoo kale channelku waa Nuno Academy channelka saaxiib waxaan ku soo gudbinaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay barashada website-ka sidoo kale muuqaal sameynta sidoo kale electric Facebook iyo saaxiib koorsooyin goos oo technology ku saabsan iyo wax walba oo technology ayaa channelkeena keenaysa marka haddii aad tahay markaa koowaad fadlan waxaan ku soconaa wadada aan gaarleen 10,000 subscriber waxay naga dhamin kaliya wax ka yar 400 oo qof marka saaxiib muuqaalka la garay sidoo kale channelka subscribe saaxiib xirfadda koowaad ee aan rabo muuqaalkan in kula wadaago waa xirfadda loo yaqaan ChatGPT maxaa yeelay qofka binaadamka wuxuu u baahan yahay inuu wax qoro inuu wax akhriyo inuu xog helo waxyaabahaas oo dhan waxa ka saacidayo aaladan ama skillskan hadda aan kula wadaagay oo ChatGPT tusaale saaxiib waxa laga yaabaa in assignment lagu soo diray sidoo kale waxa laga yaabaa in aslada YouTube-ka muuqaal u sameey sidoo kale waxa laga yaabaa in aslada research ama thesis aad waday kaga shaqeey haddii aad tahay qof ku fiican saaxiib prompt engineering ama haddii aad tahay qof wax qoriga ku fiican ChatGPT waxay ka saacidaysaa in waxa waaye waxyaabo fara badan oo aad meelaha kale aad ugu rafaadi lahayd in ay ka saacido maxaa yeelay wax walba oo maskaxdaada ku soo dhaco ayaa xagga kugu diyaarsan ChatGPT sidaan anigaba aan dareensanahay waxa lagu sameeyay waxa loo yaqaan model language oo ah in xogihii internetka ku jiro oo dhan la soo arooriyo tusaale hadda waxay isticmaashaa xogta Google-ka iyo xogaha kale internetka ku jira markasto aad wax weydiiso markasto aad wax ku qorto iyo markasto aad waxa isleedahay xog analyze garay xogtaas ChatGPT wuxuu ka keenayaa Google-ka laakiin wuxuu keenayaa specifically xogtii aad adigu u baahnayd isagoo soo koobaya waxyaabaha u baahantahay marka saaxiib tusaale waxa u baahatay inaad xog shakhsi ka weydiiso ama inaad xog cilmi ah ogaato hadda marka bal ChatGPT ina keen xaggan hadaan ku qoro tusaale what's computer hadaan xaggan ku qoro meesha waxa ka ogaanaysaa marka saaxiib in wax walba oo computer ku saabsan si dabiici ah ku sii saa u jeedid xog dhameystiran oo valuable ah oo precise ah ayuu xaggan kugu soo qoraya hadda wuxuu ku leeyahay computer is electronic device capable of performing various tasks by executing sequence of instruction xogtan inta badan wuxuu ka soo qaadanayaa Google laakiin wuxuu ku keenayaa xog shandaysan oo waxa waaye aad u baahan tahay inaad wax badan ka ogaato marka haddii aad tahay qof website leh meeshan aad iyo aad bay ku anfacaysaa maxaa yeelay dadka website-ka isticmaala inta badan wax bay qoran marka qoraalkii aad gacmaha ka qori lahayd halkan ayaa ku fududaanaysa kaliya waxaad qoraysaa wixii aad u baahnayd adigoo koobi gareysanayo oo website-kaaga la aadayo meesha saaxiib waxaa muhiim ah marka qaab qoraaleedka ama qaabka wax loo weydiiyo inaad ku wanaagsantahay tusaale hadda computerka aan weydiiyo haddii aan mo dhaho oo wax badan u baahan haddii aan dhaho tabska computerku igu daraya saa u jeedid marka waxa muhiim ah inaad garanayso qaabka ChatGPT wax loo weydiiyo oo waxa waaye xogaha loogu shaandheeyo ama xogaha looga baaro marka haddii aad skills-kan leedahay waxa ka caawinaysaa wax badan oo waqtigaaga inay ku soo koomaan adigu waxa waaye isticmaalayo prompt engineering ama qaab qoraaleed tolmoon oo waxa waaye qof iska dhigaya qof prompt engineer ama ku takhasusay qaabka wax loo weydiiyo ChatGPT marka skills-kan aad iyo aad buu muhiim waxa laga yaabaa inaad dhayalsanayso oo aad leedahay muxuu Cabdi number 1 ugu dhigay laakiin skill-kan saaxiib run ahaantii aniga aad buu i anfacay adigana aad buu ku anfacay oo aniga nolol maalmeedkii kama maqnaba wax kasta oo u baahanay wax kasta oo nolosheeda ama waxbarashadeeda iyo waxyaabihii goonida ku saabsan halkan ayaa la soo aadaa maxaa yeelay wax badan oo aniga qori lahaa ayaa halkan iga baaqanay marka haddii aan kugu dhiirigeliyo ChatGPT waxa waaye waxaan isleeyahay waad u faa'iideysay marka xirfadeena koowaad ee saaxiib aan kugu la talinahay inaad barato waa aaladan loo yaqaan ChatGPT saaxiib xirfadda labaad ee aan ku dhihi lahaa inaad xooga saarto ama waqtigan inaad barato inay muhiim tahay waa waxa loo yaqaan video editing qaasatan application-ka loo yaqaan CapCut hadda haddii aan CapCut ku dhufto saaxiib halkan waxaad ka arkaysaa project-yada dhammaan aan hadda qabto inaan CapCut ku edit karay aan ku sheegay saaxiib aniga CapCut aan ku cusbay maxaa yeelay aniga waxaan profession ku ah marka hore isticmaali jiray Adobe Premiere Pro wax loo yaqaan ama application-ka la dhihi jiray Adobe Premiere Pro laakiin Soomaalidu waxay dhahdaa wax cusub caalamka jecel sidoo CapCut-ka u soo baxay dhammaan dadkii Adobe isticmaali jiray halkan ayaa imaadeen maadaama wax walba oo halkan ku saabsan waxa way ay free yihiin CapCut-kan wuxuu muhiim u yahay in muuqaalo tolmoon oo effect leh transition leh sticker leh
text leh wax walbood u baahato niyadaada ku soo dhaco ama wax walbood isleedahay muuqaal samaynta waad ugu baahan tahay ayuu si fudud kuu siinaya. marka CapCut-ka aniga hadda kama kaftamo maxaa yeelay wuxuu noqday fududeeyaha nolosha. marka saa u jeed saaxiibayaal hadda muuqaalkii ugu dambeeyay aan hadda sameeyay waa muuqaalkaasayta waxaan isleeyahay CapCut-ka waqtigan hadda la joogo waa u muhiim qofka inuu barto oo waxa waaye wax badan kaga faa'iideysto. marka saaxiibayaal aniga hadda halkan ayaan soo guuray, halkan ayaan muuqaalada ku edit gareeyaa, halkan ayaan isticmaalaa. waxa waaye haddii aad u baahan tahay muuqaal cusub inaad samayso ii keeni halkan markuu ii keenana import ayaan leeyahay, yacni muuqaalka cusub aan u baahanahay ayaan xaggan ka soo gashanayaa. kaliya muuqaalka markaan soo gashtan open dhahana waxa waaye wax walba meeshan ay diyaar kugu yihiin. saaxiibayaal mideena saddexaad aan isku leeyahay ka dhalinyar ahaan waad u baahan tahay xoogga saar WordPress waa isweydiinaysaa marka muxuu WordPress uu ka wadaa muxuu ka wadaa. hadda tusaale aniga waxaan leeyahay website qaano Nuno Academy oo xogaha dadka ku website loo yaqaan nuno.com. website-kan internetka baa waxaan baan u maleeyahay hadda uu diidayaa laakiin halkan baan ka tusayaa. website-kan saaxiibayaal nuno.com dhaho yacni waxaan dadka kula wadaagaa inta badan fariimaha internetka iyo waxyaabaha macnaha ka cusub. sidoo kale anigoo maaragtay isbarbardhig ku sameeya qalabyada marka ayada soo baxo. haddii aad ku cusub tahay fadlan waxaan ku dhihi lahaa soo booqo oo soo arag. marka website-kaasaan aniga leeyahay waxaan ku host garay ama waxaan macnaha host ahaan u isticmaalay waa WordPress. hadda saa u jeedo meeshan waa nuno.com www.nuno.com waay. marka WordPress wuxuu ka saacidayaa marka in macnaha website-kaagi uu mid qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan uu ku noqdo maadaama saaxiibayaal aad isticmaalayso waxyaabo badanna maadaama aad wax badan isticmaalaysana isagana muhiim ayuu ku yahay inaad barato. maxaa yeelay hadda waxaa kugu diyaarsan elements gooni ah oo ma baahnidba from the scratch-ka inaad ka bilowdo adiga oo waxaa wax walba aad adiga gooni u samayso uma baahno. elements gooni ayaa diyaarsanaysaa kadibna elements si plugin camal ayaa soo gashanaysaa. marka website qurux badan ayuu ku siinaya. marka waa muhiim aydan xirfadan inaad aad iyo aad xoog u saarto oo aad barato. maxaa yeelay waxay ka mid tahay xirfadaha hadda ugu muhiimsan oo aan isleeyahay qofka dhalinyarada inuu barto qasab bay ku tahay. marka WordPress-kan kuwa badan baa jira oo Wix camal uu ka mid yahay laakiin WordPress-ka saaxiibayaal xoogga saara maxaa yeelay wax walba oo meeshan ah way kugu diyaarsiin. hadda boostiyada camal xaggaas ayaa ka arkaysaa oo all post hadda dhahdo arkaysaa media-ga camal page-ka camal wax walba oo ku saabsan macnaha website-kaaga halkan ayaa ka daawanaysaa. haddii aad u baahato marka inaad mid cusub qorto xitaa halkaas ayaad ka arkaysaa oo waxa waaye post cusub oo qurux badan ayaad halkan ku diyaarsanaysaa. marka postiga anayd hadda hadawtii kaalinta kood waxaan ChatGPT-ga ugu dhigay waxay ahayd ChatGPT-ga saaxiibayaal markaad u baahato inaad article qorto hadda meesha saa u jeedid add title buu leeyahay title raaci. marka tusaale hadda aan ka soo qaado bal marka hore waxaan weydiiso what's computer kan baan soo koobiyeynayaa halkan markaan ma saaxiibayaal what's computer-ka on copy dhaho halkan ayuu iimaanaya. xogihii kale ee meeshan ku jiray ahaa computer-ka waa sidaas maxaan ka dhiganayaa marka subheading baan ka dhiganayaa oo waaba xogti loo baahnaa in la akhriyo. haddaan halkaa ku dhufto marka waxaad ka arkaysaa marka in macnaha very simple ay tahay in macnaha qofka uu ka shaqeeyo ama uu qoro article dhammaystiran within a minute hal daqiiqo gudahood waxa waaye xog dhammaystiran ayaad macnaha aad ku qori kartaa sidaas ayaadna lacag ku shaqayn kartaa. marka saddexdaas xirfad ee maanta kugu dhiirigeliyay qof kastoo dhalinyaro oo 2024 nool aad iyo aad ugu baahan yahay. marka saaxiibayaal haddii aad ilaa dhamaadka nala soo gaartay fadlan channelka subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka nala garayso saaxiibada bugaar aad iyo aad u mahadsantahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.